tan iyo markii uu dunida ka dilaacay cudurka coronavirus ee khatarta badan ee ku dhaliyay adduunyadan galaaftayna nolosha dad fara badan qaarkoodna hadda ay la iltaran yihiin kadib markii uu soo gaaray qaaradda Afrika ugana sii tilaabay wadanka geeska Afrikada bari ku yaala ee Soomaaliya ayaa dadka ku nool Soomaaliya waxa ay noqdeen kuwa u kala qaybsamay dhowr qaybood qaarkood ayaa ku sheegaya in cudurka coronavirus uusan ahayn cudur ka duwan cudurrada caadiga ah ama hargabka halka qaarka kalena ay ku sheegayaan in koronuhu uusan ba ku dhicin dadka islaamka ah Soomaaliyana ay tahay 100% dad muslim ah halkan hadda u jeedaan waa suuqa weyn ee Bakaaraha dadku waxa ay ku guda jiraan hawl maalmeedkooda caadiga ah ayaga oo gacmaha isla galaya lagana dareemaynin ka hortagga ama faafid la'aanta cudurka coronavirus if inaad aragto dad iyagu sameynaya dadaal ay uga hortagayaan cudurka coronavirus haddaba suuqa Bakaaraha dadka jooga oo aan microphone la dhex qaadnay ayaa qaba fikirro kala duwan qaar waxay ku sheegayaan in cudurkaani uusan bilkulliyanba ku dhacaynin dadka muslimka ah inkastoo warbaahinta caalamka ay sheegayaan inuu ku dhacay wadamo fara badan oo dunida islaamka ah ay ugu horeyso dadka ku nool magaalada barakaysan ee Maka al-Mukarramah boqortooyada Sacuudiga iyo wadamada kale Indonesia Turkiga Jordan Oman iyo wadamo badan oo dunida islaamka kamid ah coronavirus ayaa Soomaaliya soo galay waxayna ilaa iyo hadda dawladda Soomaaliya ay baahisay in cudurkaani laga helay calaamadihiisa 12 qofood oo hadda 11 kamid ah ay ku karantiilan yihiin isbitaalka Martiini halka ruuxa kalena oo u dhintay haddaba bal aan aragno afkaarta dadka qaar awar hale waxa ku weydiina hadda waxaan ka dareemayaa in gacmaha kugu xiran oo gloves kugu jiraan ma aaminsantahay in coronavirus uu soo gaaray Soomaaliya waa aaminsanahay waa soo gaaray maxaa u soo xirtay gloves marka adiga hortag macnaa difaaca la sameeynaa maadaama Maxamed soo galay taas ay u kala waayahay tirada hadda dawladda sheegtay oo gaaraysa ilaa 12 inuu hadda muqdisho ku hayo qofna oo dhintay adiga ma aaminsantahay wixii la sheegay waxa ka jira teeda kale waa wax xun oo laakiin haye shacabka muqdisho maxaa ugu baaqaysaa inay ka hortag sameeyaan golofka soo xirtaan si ay tagaan ma santaa tuur weeyo معناها بالله لو هرتجا بكتيريا سو قتان سي استعمال وما استعباي هيا باي هذا مقعد ku bilaabayo corona virus xaga mista magacaygu waxa la dhahaa Xaliimo haye Xaliimo wadani yaa la dhahaa okay haye cudurka corona viruska waxaan aaminsanahay inuu yahay kaduud show la isku duray maadaama aan muslim nahay waxyaabaha dadku ay ka cabsadaan ilaaha naga difaacayo assalaamu calaykum dawladdu waxay sheegtay in coronavirus wadanka soo galay ilaa 12 qofood laga helo qofna oo dhintay ma tira sax ma aaminsan tahay jirto adiga ma aaminsan tahay jirto dawladdu waxay sheegtay waxaana arkin ma aamini karo haye dadka maxaa ugu baaqaysaa wala arkale maxaa jira waxaan ugu baaqaa inay badsadaan alla ka cabsiga si fiican waa ma santa وما صدق ولا مركز هذا كبلابا مجاعة كورونا فيروس يا هذا الدنيا كجرو سيو مجالا إن شاء الله يدفر بدن وهدرتان عذر كسلجها لا تنفع جاريسو على فكرة حكي أنت عذر كورونا فيروس أنا مجاعي وحوا فرحان عذر كورونا فيروس إلها كان الله وقف له قرقال هذا مسلم هذا قف كاس كنا قف كلام كنا عايو مع مستعد هذا الغش يا مقدش إن أي ترسح حتى والله بالله أنا ما أركن لكن سؤال أمينة ويعذر كبوجرة قفل بو كنا عكرو dadka maxaa ugu baaqaysaa waxa ugu baaqaya kaas cudurkaas ilaaha keenay ilaahay kala saartay ilaahay ku kalsanaada bis
وما حسنت ilaahay haddaad ku kalsoonaato cudurkan ma kugu dhacaayo وما حسنت وما حسنت أباي أبو ما يعود كبلا أباي عذرك كورونا فيروس الحكام سده magacay waa Naciimo cudurka corona virus badana ka aaminsan مقدشين سو غاري ما مستاديga هي ترى دولته sheegtay oo 12 qofood iyo qof inuu dhintay هي ما مستادين jirto هي dadka muqdisho waxa u baaqaysaa inaad taxadar sameeyaan midnaha waxaan kaa rabaa laba gabadha hadda ku socotay gacmaha waxa u jira gloves adigana ma kugu jiro haye أنا معناها تقولي أنت دواعي هذا شو قمت مكان معناها هذا قد اسمه تحضر ما يد حتى بس ميرا ما قبلوا تجاب بيها سيدها دعوة وحقيقة فيرمس كتير مركا هذا نقولي تجاب وسيدها هذا نقلاف السين كذا dadka waxa u baaqaysaa هذا حضر سميان وباقي لها وما سنت ولا شيء